kowdii aroornimo 2 May sanadii 2011 Mareykanka waxa ay ku dhawaaqeen in la soo gabagabeeyay howlgalkii baacsiga Osama bin Laden oo ahaa hogaamiyihii ugu sarreeyay ururka xagjirka ahaa ee la dagaalamayay reer galbeedka taasoo inta badan dadkii reer Mareykan u laabqaboojisay gaar ahaan dadkii eheladooda lagu laayay weerarkii daaraha mataanaha ahaa ee dalkaasi Mareykanka balse durbadiiba warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay oo sheegaya in uu Mareykanka ka been abuurtay dhimashadii Osama bin Laden halka kuwa kalena ay ku andacoonayeen inuu nool yahay hogaamiyahaasi ururka lagu tilmaamay argagixisada ee u dhashay wadanka Sacuudi Carabiya shakiga intiisa badan ayaa yimid kadib markii militariga dalka Mareykanka ay sheegeen in Osama ay ku duugeen meel ka mid ah badda ayagoo ka gaabsaday inay soo saaraan wax sawir ah oo cadeynaya dhimashada hogaamiyahaasi sidoo kaleete shaki ayaa laga muujiyay sababta howlgalka lagu dilayay Osama bin Laden oo toos looga daawanayay aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka loo danshay kaamiradihii ku xirnaa koofiyadaha askartii howlgalka waday muddadii ay socotay shaqaaqadii ka dhacday gurigii la sheegay inuu ku noolaa Osama bin Laden taasi oo shakiga sii weynaysay daqiiqado yar kadib markii uu Mareykanka shaaciyay in uu dilay hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Osama bin Laden telefishinka laga leeyahay dalka Pakistan ayaa shaaciyay sawir uu ku sheegay inuu ahaa Osama bin Laden oo markaasi la dilay isla markiiba sawirkii waxa qaatay wakaaladda wararka ee AP balse wax yar uun kadib wakaaladii sawirkii waa ay tirtirtay oo waa ay ka bixisay baraheeda bulshada iyo sidoo kale website-keeda kadib markii la sheegay in sawirkaasi uu ahaa mid been abuur ah 4 May 3 maalin uun kadib markii la sheegay in howlgalkii la fuliyay lagu dilay Osama bin Laden maamulkii uu hogaaminayay Barack Obama ayaa sheegay in aysan soo bandhigi doonin sawirada Osama bin Laden ayagoo ku andacooday in sawirada intooda badan laga qaaday Osama bin Laden markii la dilay kadib ay ahaayeen kuwa argagax leh oo aanan la daawan karin dhanka kale tan iyo maanta sawirada kaliya ee laga helay howlgalkaasi la sheegay in laga fuliyay gurigaasi uu ku noolaa Osama bin Laden waa kuwii la qaaday markii howlgalka uu dhacay kadib oo ay soo bandhigtay wakaaladda wararka ee Reuters balse lama hayo wax sawir ah oo ku saabsan ninka la sheegay in lagu dilay gurigaasi soo dhawow daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar mahadsanid howlgalka la sheegay inuu ka dhacay magaalada Abbottabad ee dalkaasi Pakistan ayaa waxaa beeniyay saraakiil ka tirsan laamaha sirdoonka ee dalkaasi Pakistan oo sheegay in wax dagaal ah uusan ka dhicin magaaladaasi walow markii dambe warbaahinta iyo qaar ka mid ah dadyoogii ku noolaa magaaladaasi ay xaqiijiyeen in weerarkaasi uu jiro oo uu dhacay laakiin arrinta la yaabka leh ayaa waxa ay noqotay markii madaxii hore ee ugu sarreeyay laanta sirdoonka ee dalka Pakistan Hamid Gul uu sheegay in Osama uuba dhintay sanadyo ka hor inta uusan Mareykanka fulinin weerarkaasi Mr. Gul oo la hadlayay telefishinka CNN ee fadhigiisu uu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay ka warqabeen inuu dhintay Osama bin Laden mar hore balse maamulkii Barack Obama uu hogaaminayay ayaa ujeedo siyaasadeed ka lahaa oo lagu gogol xaarayay doorashadii soo socotay ee sanadii 2012 waa sida uu yiri madaxaasi hore ee laanta sirdoonka ee dalkaasi Pakistan hadalkaasi ka soo yeeray madaxii sirdoonka ee dalka Pakistan waxaa mid u dhow ku dhawaaqay wargeyska Awsaaf ee ku soo baxa luqadda Urduga isagoo shaaciyay in Osama aanan maalintaasi la dilin balse meydkiisa oo mar hore dhintay si sir ah loo geeyay wadanka Pakistan si loogu dhaawaco sumcadda dalka Pakistan loona tuso caalamka in Pakistan ay tahay hoyga argagixisada Barkan Yashar oo ah siyaasi reer Turki ah ayaa isna sidaasi oo kale sheegay in Osama bin Laden uu si caadi ah u dhintay lana duugay taariikhdu marka ay ahayd 26 June sanadii 2006 4 sano ka hor inta aysan Mareykanku sheegan inay dileen Osama bin Laden siyaasigaasi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri balse Mareykanka oo lacag badan ku bixiyay in la soo qufo meydkii Osama bin Laden ayaa waxa uu ka damacsanaa in uu ka dhaadhiciyo caalamka inuu soo gabagabeeyay la dagaalankii ururkaasi dhaawac weyn gaarsiiyay dadkii reer Mareykan laakiin waxa la yaabka leh ayaa waxa ay tahay 9 sano kadib markii la sheegay in la dilay Osama bin Laden dalka Mareykanka ayaa mar labaad waxa uu shaaciyay in Osama bin Laden uusan ahayn ninkii la dilay laguna dilay howlgalkii ay fuliyeen ciidamada dalka Mareykanka
13 bishani aynu ku jirno ee Oktoobar sanada 2020 ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump taageeray fikirka ah inuusan Mareykanka dilin Osama bin Laden oo waliba waxa uu sheegay in uu ahaa warkaasi wax la soo dhadhoobay isagoo ku sii daabacay bartiisa Twitterka warbixin ay daabacday mareegta la yiraahdo DJHJ oo fadhigeedu uu yahay dalka Mareykanka. warbixintan ayaa waxa ay sheegaysay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa oo hadda ah ninka u tartamaya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ay ka been sheegeen dilkii Osama bin Laden ciidamadii Mareykankana ay dileen qof kale oo aanan ahayn Osama bin Laden. sidoo kale qabiir u dhaqdhaqaaqa arrimaha ka dhanka ah amni darrada iyo dagaalada caalamka ka dhaca ee la yiraahdo Sindey Shehan oo u dhalatay dalka Mareykanka ayaa tiri haddii aad moodaan in geeridii Osama bin Laden ay ahayd mid cusub xilligii uu Barack Obama sheegayay waa aad qaldan tihiin. iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay tiri Barack Obama wax caddayn ah oo sheegaya in Osama bin Laden la dilay ma hayo ilaa maanta. sidoo kale maamulka Obama DNA-da ay yiraahdeen waa la qaaday maba dhici karto oo taasi mid suurtagal ah ma ahan waayo ninka waxa uu ahaa nin aanan ku jirin gacanta dalka Mareykanka xilliga la leeyahay waa la dilayna waa ayba adkayd in la baaro DNA-da sababtoo ah muddo gaaban gudaheeda ayaa Mareykanka waxa uu ku cadeeyay in ay dileen Osama bin Laden. su'aasha waxa ay tahay goorma ayaa la baaray DNA-da lana shaaciyay muddo saacado gudahooda ah. Shehan warkeeda ayaa waxa sidoo kale taageeray Webster Tabley oo ah qoraac caan ka ah dalka Mareykanka isagoo yiri dilkii Osama bin Laden kaliya waxa uu ahaa mid lagu doonayay in lagu laabqaboojiyo dadka reer Mareykan balse Osama bin Laden waxa uu ba dhintay sanadyo ka hor inta uusan dalka Mareykanka sheeganin in uu dilay ninkaasi. Andrew Napolitano oo isna ah wariye caan ka ah dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada Osama bin Laden ay ahayd mid uu ugu dan lahaa Barack Obama in uu ku soo baxo doorashada dalka Mareykanka ka dhaceysay sanadii 2012. maalmo un kadib markii uu wariyahaasi hadalkaasi shaaciyay ayaa sidoo kale waxa waxba kama jiraan ka soo qaaday dilkii Osama bin Laden gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee dalka Canada Thomas Mulcair oo yiri runtii waxa ay ahayd in maamulka Barack Obama ay la yimaadaan sawirro cadeynaya dhimashada Osama bin Laden balse ma caddo ilaa hadda in la dilay ninkaasi iyo in kale. waxa aynu u dhowdahay in aanan la dilin oo isaga iskiisa uu iskaga dhintay. dhammaan waxyaabahaasi iyo dadkii ka hadlay waxa ay cadeynayaan in dilka Osama bin Laden uu shaki ku jiro ciddii geysatay. daawadayaal intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii maanta aynu uga hadlaynay dilkii Osama bin Laden ma runba mise waa been. tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.